markastoo bini aadamku xag ilaahay u soo noqdaana ilaahay xaaladooda isaga marka bini aadamka bedelaya muslim ayuha almuslim a'mal ahkam waxa ilaahay nabigeena inoogu soo dhiibay hadday muslimiintu gartaan nidaamka caalamka oo dhan bedelaysa roob haddii la waayo gaalada maanta la leeyahay teknoloji bay gaadheen horumar bay gaadheen aalad ma hayaan ay roobka ku keeni karaan walaakiin nabi maxamed innaka wuxuu ina baray salaadii iyo ducadii roobka lagu keeniyo nabigu na baray nabi reer bani israa'iil dagaal buu galay dagaal jihaad dagaalkii oo socda oo gaal iyo islaam la isku leynayo salaadii casar baa gaadhay markaasay nabiga u sheegay yiraahdeen yaa nabiy allah salaadii casar baa taagan nabigii waxa la yiri fartiisu ku fiiqay cad salaa ugu fiiq oo nabi ilaahay doorto rasuul markaasuu adigu amar baad ku socotaa annaguna amar baan ku soconnaa kaana markiisa ku wada soconno ayaan weydiisanay inuu ku joojiye halka noo joog buri la aan gaalada kala baxayno halka ha ka dhaqaaqin xadiisku waa saxiix dagaalkii bay way wadeen gaaladii bay jabiyeen way ka guuleysteen qaniimadii xoolihii bay la soo hareen kolkay guushii ay gacanta ku dhigeen wax walba ay guuleysteen ayuu nabigii ku yiri cadaabta inoo eega wali halkii bay joogtaa soo ma joogtaa salaada imika tukanayna marka salaadii tukadeen buu yiri haddaba imika iska soco iska dhacbu ka yiri horumarka caalamku ma gaadhay imika caalamka horumaray maxaa horumaray birahan qayliya horumaray birahan wax duubaya horumaray bani aadamku ma horumarin maanta hoos baan u dhacnay inaku maanta kaligii meel jooga maqlay fadka dhexdeedoo laga leeyahay beerta hebel u geeya daruurta beerta hebel roobka u geeyo daruurta u geey u wiciya daruurtii buu eegay meel bay ku daaday barkad biyay ku dhacday beertii buu yimid nin wuxuu arkay dhex taagan oo biyihiisii beerta mangadka ugu wicinayo markaasuu magacii buu sheegay magacii uu ka maqlay fadka daruurta dhexdeeda iyo magaciisii baa isku tagay buu rasuulku yiri markaasuu gari maxaad iga weydiisay magacayga wuxuu yiri wallaahi wax kale kuma weydiine waxaan maqlay magacaaga oo fadka dhexdeeda laga sheegaye beertaadan maxaad ku samaysaa ii sheeg daruurtii waa ka ilaahay adiga ku keenay wuxuu haddaad weydiisay beertaydu markay ii soo go'do ayaa saddex u qaybiya midhaheega qayb beerta ayaa ku celiya qaybna aniga ubadkayga ayaa cunno isticmaalna qaybna waa sadaqadaystaa buu yiri bal fiirso xadiistaas waa wada saxiix wa bani israa'iil ayuu nabigu nooga sheegay qisas saxiixa maxuu kugu sheegay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam waxa lagu baraarujinayaa haddaad amalkaaga hagaajisid haddaad adiga iyo ilaahay xiriirka inii dhaxeeya haddaad hagaajisid noloshaada adduunyadan iyo aakhiro waxba ka xumaan maaya innaka waxaan doonaynaa wax walba inaan ku hagaajino lacag wax walba inaan ku hagaajino awood wax walba inaan ku hagaajino qabiil wax walba inaan ku hagaajino aqli may nolosha adduunyadan ilaahay baa haya nolosha aakhiradana ilaahay baa haya ilaahay nolosha adduunyada iyo aakhiro labadaba wuxuu ilaahay kugu hagaajinaya waa diin waman arada al-aakhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaa'ika kana sa'yuhum mashkura sa'i baa la sheegay sa'i مشكور إلهي أسعي لكن بيرتي سيدك كالصوغودا أيو حقوق العباد بكيلا لي بس حقي أضمه كل هاي وصدق بيرتي سيدك كالصوغودا أيو حقوق العباد بكيلا لي بس حقي أضمه كل هاي وصدق